السلام عليكم أصحابتي qaaliga dhamaantiin ku soo dhawaada cooking saacada dhamaantii ku cusubtiin ku soo dhawaada family subscribe kan markaa dhehaysid subscribe kan dhinaciisa gambaleel yariis ayuu ku yaala gambaleelkaas riix marol video aan soo galeysay dhaqso inay soo gaaraan marka maanta videogan waxa aan tusinaa laba nooc quraac aad u sahalsan oo guriga ka samaysan kartiin marka waqti yar haysid oo quraac rabtid marka laba nooc quraac aad u sahalsan sida guriga aad uga samaysan kartiin videogan igu tusinaya marka videogan dhameystirta laba nooc quraac ayaan tusinaa marka sidaas la socda asxaabteed qaaliga daawasho waxaan soo dabaaqliga waxaan ku dhex shubayaa barbarooni oo gaduud aan soo jarjaray asxaabtada barbarooni gaduud haysanin yaanyo si yar yar sidaas ay u soo jaraysaa ay ku darsanaysaa kadibna waxaan ku darayaa basal aan si yar yar u soo jarjaray marka basasha markaan ku daranay kadibna waxaan ku darsanayaa barbarooniga midka jaalaha ah noocaas ayaan ku darayaa hadda haysan barbarooni jaala laasim aha barbarooniga cagaarka ayaad ku darsan kartaa kadibna waxaan ku darsanayaa nus qaada basbaaska gaduudka la soo jajabiyay ayaan ku daray chili flix hadda basbaas jecleenin laasim oo iska dhaafi kartaa kadib waxaan ku darsanayaa wax yar oo kabsar caleen aan soo jajaray ma soo tumin mana soo shiidin waan soo jajaray kabsar caleenka ayaan ku daray kadibna nus qaada oo filfil midoob ayaan ku darsaday kadibna waxaan ku darayaa cusbana qiyaastaada ku darsantii adig afka ku qaadays ayaa ku xiran yahay andeen waxaan ku darsanaa hal qaado basbaas camba laga sameeyay midka oo chipsiga aan ku cuno waa zaaid aan u jeclaa basbaaskan marka diyaar waa kan banaanka ayaan ka soo gaday marka asigoo camba ah waa kaas ayaan ku darsadaa hadda basbaas jecleen laasim ah inaan ku darsatid kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado oo yaanyada macaanka oo baradhada chipsiga lagu cuno tomato sauce kaas ayaan ku darsaday hal qaado marka asxaabta intaas waxaan markaan isku daro waxaan ku darsanaa hal qaado oo saliid zeytuun ayaan ku darayaa hal qaado yariis ayaan ku daray qiyaastii saliida marka intaas markaan isku daro hadda waxaan sameynaa si fiican aan isku qasaa waxyaabahaas dhan aan isku dardaray kadibna waa arki doonteen sida kale aan u sameynayo quraac zaaid u macaan badan oo caafimaad leh waa saliidaan isticmaalayna saliid aad caafimaad u leh waa marka saliid cadeedan ma ku sameynaa maanta cuntada saliida waxaan isticmaalayna waa zeytuunka laga sameeyo aragteen marka intaas waxyaabo hadda isku qasay si fiican marka geesaan iska dhigaa qaybta labaad ayaan tusinaya soo hadda baaquli kale waxaan ku shubanayaa laba xabo oo ukun asxaabta ada ukun rabtid oo badsan kartaa aniga qiyaastii ayaan tusinaa laba xabo ukun ayaan sameynaya hadda ukun badan rabtid oo badsan kartaa marka asxaabta laba xabo ukun ayaan ku shubaa baaquli kadibna cusbo ayaan ku daraa cusbana qiyaastii ku darsada andeen waxaan ku darayaa hal qaad oo tuun iyo sanjabiil shiidan waa soo asxaabta da ukun oo shiirkiisa nacban tahay marka tuun iyo sanjabiil da hal qaad aad ku dartid ma ku soo shiiraayo ukun marka cunaysid waxaad u maleynaysaa wax kale inaad cunaysid ukunta dhan ma ku soo shiiraayo marka sidaas ayaa sameyn kartaa hadda waxaan sameynaa si fiican aan u garaacaa waxyaabaha dhan aan isku dardaray kadib ayaan tusnaa waxyaabaha kale aan ku dari doono sida kale aan u sameyn doono quraac zaaid u fiican oo aad uga heli doontiin insha Allah asxaabta marka asxaabta ukunta sidaas markaan garaacay waxaan ku darsanayaa wax yariis oo fariisul qiyaastiis oo hurud ayaan ku darayaa asxaabta hurudka caafimaad zaaid ayuu leeyahay marka asxaabta hurud jecel hurud oo ku darsan kartiin hadaa jecleenina hurud kalaasima laakiin hurudka caafimaad ayuu leeyahay cuntada wax yar hadaa ku darsid faa'iido badan ayuu ku yeelayaa marka waxyaabaha dhan si fiican aan isku qasay kadibna waxaan aadaynaa qaybta labaad marka hadda waxaan u baahnaa maanta aan ka sameynaa quraacada crepeskan waxa waa baradho waaye oo la soo doomidka diyaarka ah asxaabta waxaan u maleynaa dhamaantiin inaad taqaantiin bacyaashan ayuu ku imaadaa diyaarka ee crepeska la cuno waa marka meel walba aad ka helaysaa adduunka supermarketka ka soo gada kartaa soo hadda saxankaas ayaan ku shubayaa nooc anigaan isticmaalayaa nooc midka basbaaska leh waaye laakiin asigoo basbaas la'aan ayuu jiraa nooc aadin kartiin aad isticmaali kartiin aniga waxii aan soo gataba waxyaabo basbaas ah waa because basbaaska zaaid aan u jeclahay cuntada basbaas la'aan hadduu basbaas ku jiro cuntadaas maba cunayo soo basbaas familka dhan basbaas zaaid aan u jecelnahay soo sidaas darteed marka waxyaabaha aan sameynay dhan most of time basbaas badan ayuu ku jiraa soo asxaabta aragteen hadda wax yar sidaas aan u jabinaa marka saxankan ku shubo daqiiqa ka dhigan just wax yar aan rabnaa inaan jabino because way weyn waay soo hadda sidaas markaa ka dhigtid soo jabisid hadda diyaar waay marka hadda qaybtii labaad iyo sida kale aan u sameynaa ayaan tusinayaa hadda crepeskeeni waan diyaarsanay soo asxaabta marka crepes marka aan diyaarsada kadibna saxankan waxa uu saaran yahay baaquligaas igu jiro hilib oodkac waay marka hilibkaas oodkac ayaan u baahanaa maanta quraacada inaan ka sameyno
soo asxaabta daawada ayaan dabka saaray kadibna waxaan ku shubay hal qaado qiyaastiisa oo saliidda saytuunka laga sameeyay ayaan ku shubay kadibna waxaan sameynaa saliid waxay riisayaan sugaa ilaa ka kulaado markuu kulaado kadibna waxaan ku shubayaa ukuntii aan soo garaacnay kaas ayaan ku shubayaa marka asxaabta waxaa la rabaa dabka aad ku dubaysid ukunta inaa hoos ka dhigtid au dheereenin si dhaqsi ay kaa gubanin because waxyaabo badan ayaan oo dhiman inaan ka sameyno soo dabka waxaa la rabaa inuu hoos ahaado si ay kaa gubanin kadib hadda waxaan kor saarayaa baradhii hadda aan soo tusina aan soo jajabinaya crepes-ka sidaas ayaan korkiis ugu saaranaya ukunta korkiis sidaas u saar and then waxyaabaha kale ayaan tusina sida kale aan u sameynayo marka hadda waxaan kor saarayaa barbarooniga iyo waxyaabihii aan soo diyaarsanay ayaa sidaas u kor saaraya marka saaraysidna gees ayaa loo baahan inaad saartid dhexda saarin marka hal gees ayaan saareynaa waxyaabaha dhan marka kul sidaas ayaan u saar waa aragteen asxaabta barbaroonigii dhan aan soo diyaarinay kadib hadda waxaan kor saarayaa waxyariiso hilib oodkac ayaa iigu jira baaquligan marka hilibkaas oodkacda ayaan kor saaranayaa and then marka oodkacda hilibka sidaas u kor saaro kadibna sida kale aan u sameynaya marka waxaan sameynayaa marka waxyaabaha dhan markaa sidaas isku kor saaray hadda waxaan sameynayaa ukunta qaybta kale ayaan soo qaadaa sidaas ayaan ugu kor gedinayaa kadibna waa kay sidaas ayaan ugu daboolay marka waxyariis waqti ayaan siinayaa aan si fiican aan u kariyo laakiin asxaabta marka sidaan aad ku karinaysid waxaa loo baahan yahay dabka aad ku karinaysid inuu dab gaab hoos inaad ka dhigtid waay dabka u dheereenin hadaa kale ukun waay dhaqso ayuu kaa gubanayaa marka waxaad sameynaysaa dabkaad ku karinaysid inaad dab hoos ka dhigtid si ukunta kaa gubanay oo kala qurux badan sidaan kuu noqdo kadibna ukunteena sidaas ayuu diyaar ku noqonaya quracadeena I hope insha Allah dhamaantiin ka faa'iidi doontiin this quick recipe quracada maanta aan soo geliyo videogan hadaa ka heshiin insha Allah videogan like iyo saar si share gareysi walaalaaga asxaabtaada warkaanay ka faa'iidaan dhamaantiin ku xasabtiina ku soo dhawaada familka subscribe ka dhinacaysan gambaleel yaris ayuu ku yaalaa gambaleelkaas reex mar walba video aan soo geliyo si dhaqso inay soo gaaraan marka asxaabta waxay sidaas aan isku kulay waxyaabihii aan kor saaray dhan soo hadda quracadeena diyaar waa marka stoofka ayaan ka saaray kadibna saxanka ayaan ku shubayaa waa ka asxaabta quraca oo aad u sahalsan waa waqti badan ka qaadanaynin oo quraca macaan badan cunaysid zaad ayuu macaan badan markaas sidaan loo sameeyo marka hadda waxyariis waan sii jarjarayaa sidaas ayaan waxyariis u jarjarayaa kadibna quracadeena sidaas ay diyaar ku noqday insha Allah adinkan baroowi asxaabta aad uga heli doontiin special marka oo baradhaha crepes-ka sidaas loo saarto ukunta zaad ayuu macaan badan dhamaantiin waad ka wada heli doontiin insha Allah baroowi this quick recipe oo maanta aan soo geliyo quracada marka asxaabteeda qaaliga waa ka quracadeen sidaas ayaan u sameeyay ku soo dhawaada dhamaantiin asxaabteeda qaaliga videogan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen dhamaantiin hadaa ka heshiin videogan like saar si share gareysi walaalaaga asxaabtaada warkaanay ka faa'iida soo asxaabteeda qaaliga quracada midka hore sidaas ayaan u sameeyay waa aragteen aad ayuu sahlan sameeskiisi aadna u macaan badan yahay marka adinkana baroowe insha Allah hadda waxay idin tusinayaa nooca labaad quraca sidaan u sameynayo marka asxaabta sidaas la socda daawasho wacan dhamaantiina hadda daawada ayaan dabka saaray kadibna waxaan ku shubayaa wax yariis oo subag ah hadaa subag haystid ku shuba zaid ayuu macaanaa cuntada hadaa haysanin waxaa ku shuba kartaa saliid marka aniga subag aan isticmaalaa waa midka rootiga la marsado marka midka aniga daawada aan marinaa waa midka rootiga la marsado kadibna cusbo ayuu leeyahay mid kale ayuu jiraa cusbo la'aan asigoo yahay marka adinka waxay helaysiin hadaa helaysiin okay waa cuntada zaid ayuu macaanaya marka lagu karsado hadaa heli karin waxaa sameynaysaa saliidaada ayaa isticmaalaysaa marka asxaabta markuu kulaado waxyariis subagaaseti waxaan sameynayaa yaanyadii aan soo jarjaray ayaa sidaas ugu safaaya yaanyadan waa aragteen asxaabta warwareegaas ayaan ka dhigay culays ma aha khafiif ayaa la rabaa marka yaanyada culays zaid ka dhigtid hadhow culays ayuu ku noqonayaa marka waxyaabaha kale aad ku darsanaysid marka waxaa sameynaysaa yaanyada markaa jarjaraysid khafiif oo warwareega u soo jarjar kadibna sidaas ayaa sameynaysaa daawadaas aad ku safaysaa hadda waan sii dhaafayaa waan sii karinayaa waxyariis yaanyadaaseti ilaa hoos markuu bislaado kadibna dhinac kale ayaan u gedinaynaa marka asxaabta dabka aad ku karinaysidna medium inuu ahaado waaye dabka zaid u dheereenin stoofka dhaqso ayuu kaa gubanaa hadii kale marka hadda waa aragteen yaanyadeeni hoos sidaas ayuu u bislaaday hadda waxaan sameynayaa dhinaca kale ayaan u gedinayaa markuu bislaado marka labada gees aan biseel aan ka dhigno waa yaanyada
marka dhinaca kale ayaan u gedinayaa, dhinaca kalena waan sii karinayaa, biseel ayaan ka dhigayaa. kadibna waa arki doontiin sida kale aan u sameynaya quraac oo aad u sahalsan waaye. ilmaha ayaa u sameyn kartaa, familka dhan ayaa u sameyn kartiin. maasha Allah zaaid ayuu macaan badan yahay. marka asxaabta ayaan jecelna sidaan ay u sameysan kartiin quraacada. soo hadda kulli sidaas ayaan u gedinayaa, kadibna waan sii sugayaa. dhinaca kalena wax yariis markuu bisaal noqdo kadib ayaan isna waxyaabaha kale aan ku dari doono. sidaas la socda asxaabta. soo asxaabta waa aragteen kulli sidaas ayaan u gedgediyey. kadibna hadda waxaan siinayaa 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo kale oo hoos dhinaca kale oo bisaal markuu noqdo. kadib waa arki doontii sidoo noqonaya. marka hadda intaan noogu karaay dhinaca kale waxaan sameynayaa waxyaabaha kale ayaan diyaarsanayaa. marka hadda ukunta iyo waxyaabihii kale aan ku darsanayo ayaan sii diyaarsanayaa. marka hadda waxaan sameynaynaa qaybta labaad ayaan tusinayaa. soo hadda waxaan soo qaaday baaquli, kadibna waxaan ku shubayaa 3 xabo ukun ah. marka 3daas xabo ukun aan ku shubaa baaquliga. marka asxaabta u badsan kartiin ukunta darabtid wax badan inaad sameystid, ukun badan aad sameysan kartaa. laasima inaad 3 xabo sameysid. qiyaasteeda ayaan ku tusinayaa. marka waxaan ku darsanayaa farmaajo, ayaan ku darayaa cheese. asxaab badan waxay i weydiiyaan farmaajo maxaa waaye. farmaajo waxa waaye midka oo pizzada korkiisa lagu shubo marka cadcadka kaas waa farmaajo. because of Somali farmaajo ayaan u qaanaa, af Ingiriisna cheese ayaa la dhahaa. marka asxaabta daa magac kala jiro oo farmaajo comment hoos ku soo qor si asxaabta kale u fahmaan waxa aan ka wado farmaajo ama cheese. kadib marka aan ku dar farmaajo waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah. qiyaastaada ku darso cusbo. and then waxaan ku daray nus qaad qiyaastiisa oo basbaaska gaduudka midka boorbarka. marka asxaabta daa basbaas cunaynin laasima inaad ku darsid. basbaaska iska dhaafi kartaa, waxyaabaha kale aad ku darsanaysaa. soo hadda si fiican aan u garaacaya ukuntaaseti waxyaabaha dhan aan isku dardaray. marka asxaabta farmaajo aan isticmaalayo waxaan soo dhigayo community-ga sawirkiisa bacdiisi meesha ka fiirsan kartiin. kadib waxaan ku darsaday caano, ayaan ku daray caano mac midka looda laga sameeyo ayaan ku daray. wax yariis oo caano ah ayaan ku darsaday. kadibna sidaas ayaan u garaacay. marka waxaan sameeyay asxaabta 3 xabo ukun ah, wax yar oo farmaajo ayaan ku darsaday cheese. kadibna cusbo iyo basbaas ayaan ku daray iyo caano. intaas ayaan isku qasay ukunta dhexdeeda. marka waxaan soo laabanayaa yaayadina dabka ii saarna ay soo kareysay. marka yaayada bisaal waaye waxaan sameynayaa ukuntii aan soo diyaariyay aan soo qasay ayaa sidaas ugu dhex shubaya. marka asxaabta hadda marka meeshaan aad gaartid waxaa la rabaa stoofkaaga inaa hoos tartiib yani ina u gaabisid, zaaid u dheereynin si dhaqsi ay ka gubanin. because cuntada inuu bislaado waaye. marka waxaan sameynaynaa dabka hoos ayaan ka dhigay oo u gaabiyay. kadib hadda korkiisa waxaan ku shubanayaa wax yariis oo barbarooni si yar yariisaan u soo jarjaray ayaa sidaas ugu kor shubayaa. asxaabta barbarooni cunaynin laazim ma aha, waxyaabo kale ayaa kor saaran kartaa. hadaa barbarooni jecleynin, hadaa barbarooni jeceshahayna waa ku shuban kartaa korkiisi. marka barbarooniga markaan ku shubo kadibna waxaan kor saaranayaa zeytuunka midka diyaarka ee dhalaha ku imaado, kaas ayaan ku kor shubanayaa. hadaa zeytuunka helaysid kor shubo, hadaa jeceshid ayaa ku shuban kartaa. hadaa jecleynin laazim ma aha, waa iska dhaafi kartaa. waxay adiga jeceshid markaa saasid ayaa saaran kartaa. marka asxaabta markaa zeytuunka korkiisa aan saaray kadibna basbaas gaduud aan si yar yar aan usoo jarjaray ayaan kor saartay. hadaa basbaas cunaynin laazim ma aha, qaybtaasoo basbaaska iska dhaafi kartaa. kadibna waxaan kor saarayaa farmaajihii aan ku dhex daray ukunta dhexdeeda wax yariis hadana korkiisa ayaa sidaas ugu shubayaa. kadibna waa arki doontii sidoo noqonayo quraac zaaid oo macaan badan oo asxaabta. insha Allah adinkan baroowe waa arki doontiin macaankiisa siduu u dhadhamayo. markaa quraacada sidaan loo karsado xataa ukun ma ku shiiraayo. soo hadda waxaan sameeyay daboolka ayaan saaraya, dab hoose ayaan ku karinayaa ukunta. kadibna waa arki doontiin. marka asxaabta ukun nacban inay cunaan shiirkiisa waxaa sidaa markaa u sameysid oo farmaajo aad ku dartid xataa ma soo shiiraayo. ukun dhan ma dareemaysid, waxaa u malaynaysaa pizza adigoo cunoos oo kale. soo asxaabta waa kay ukunteeni diyaar waaye. marka waxaan sameynayaa dabka stoofka ayaan ka saaraya. waa aragteen hoos sidaas ayuu bislaaday, korna qaleelkaas ayuu noqday. marka inaad gedisid ma loo baahan, just daboolkaas ayaa saaraysaa. kadibna muddo yar ayaa dhaafaysaa dab hoose kadibna waa arkaysaa ukuntaas sidaas ayuu bislaanaya.
waa ka asxaabteeda qaaliga quraacadayna maanta sidaas ayaan u diyaariyay. I hope inshallah dhammaantiin inaad ka faa'iideen this quick recipe quraacada maanta sidaan u sameeyay. Videogan hadaa ka heshiina videogan like ii saar sii share gareysii walaalahaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan. dhammaantiin ku cusubtiina kusoo dhawaada familka subscribe ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas riix marwal video aan soo gelisay dhaqso inay soo gaaran soo asxaabteeda qaaliga waa aragteen labada nooc quraac maanta sidaan u sameeyay. I hope dhammaantiin inaad ka faa'iideen videogan marka asxaabteeda qaaliga videogeena labada nooc quraacada maanta intaan ayuu ku eegyahay until then inshallah next video is maqli doona with new recipe. dhammaantiin khayr badan ee dhaaf dunida meel walba ka joogtaan and as always dacwadigu xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.